magacayda waa maxamed macalin cali waxaan nahay dhibana halkan baaq ka dirsanahay marka hore ilaahay subxaanahu wa qaadirka ayaan maaragtay dhibkayda u sheeganaya midka wax walba awoodo waa asaga mid xigta waxaan baaq u dirsanayaa maanta dawladayda qiimaha iyo qadarinta mudan iyo sharafta waqtiga iyo juhdiga faraha badanna maaragtay aan ku soo bixinay waxaan ugu soo bixinayna ay ahayd in ay maaragtay si wanaagsan gobolka ay maamulaan inay maamulaan darteed aan ugu soo bixinay ayna si wanaagsan oo sharaf iyo qiimo iyo qadarin ay ku dhahan tahay ay shaqadooda u wataan oo imaamun caadil inay yihiin aan xaqiiqsanahay dawladdeena qiimaha badan ee UDM taas waa midaas oo inkiin mahad celinahay sida wanaag iyo sharafta badan aad maaragtay aad u gudanahaysiin waajibadii aad ilaahay insaari iyo codayntii annaga aan idiin soo codaynay aad u gudanahaysaan inkiin mahad celinayaa waa ku mahadsantihiin midda xigta dhibkayda haddii aan ka hadlo maanta meeshaan isoo istaaji oo baaq ah oo aan u dirsanaya dawladdayda aad iyo aad ugu qaaliga ah UDM ka bilaabata His Excellent Governorheena qiimaha iyo qadarinta mudan His Excellent Maxamed Aadan Khaliif iyo sanadkaaga aad iyo aad ugu qaali ah sanadkaageena UDM mar hore noo soo hay maaragtay governaha bilicda sharafta iyo qiimaha badan soo bixiyay magaalada townkeeda muxushmuha cali ibraahim roba lambarka saddexaad oo baaqayda aan u dirsanaya waxaa waaye muxushmuha cumar maxamed macali xasan cumar sala speakerga countiga ahna mbiga maaragtay hore aad iyo aad u wanaagsanay mar saddexaadna ahay dibitka countiga soo mari oo sidaan ogsoonahay inaad ahay nin cadaalad mudan si sharaf leh qiimo badan xaqiis u gudanay ahay aan maaragtay aan markhaati adduunka ugu nahanin aqaaran aan ugu noqonin waxaa kaloo baaqaas aan maaragtay usii dirsanaya anoo ku socdo listiga UDM dawladdayda qiimaha badan ku socdo mama county muxushmuha umulkhayr baaqaas aan dirsanaya wuxuu yahay waxaan nahay dhibana degan magaalada Mandera waxaa jirtay gaari maaragtay yar oo taxi aan ku shaqaysanayo on company aan gaala ka soo qaatay installment lagu lahay iyo accident iga gali gaarigaas oo maaragtay sawirkiisa accident-ga aad gali aad ku arki doontaan insha Allah bidna kareem clipkan dhexdiisa aad ku arki doontaan gaari waxaa lagu lahay lacag 310,000 iyadoo lagu leeyahay company ugu leeyahay accident gali muddo hadda waxaad yeelaa asgarash yeelaa qariib 40 maalmood asgarash yeelaa waad ogtahay ninka doo taxi leeyahay maaragtay ilaahay subxaanahu wa qaadirka idood bixiya biilka wax walba aad bixiyo mas'uuliyadda saaran wuxuu ahay maaragtay gaari maaragtay aan cid ku bilay oo hooyo aabeen leeyahay qaraama le gargaran maaragtay lagu bixinay aad ahay 40 maalmood yeela qariib muddo ku dhow 40 maalmood 50 maalmood ee garash yeelo anina waan awoodi waay maxaa yeelay wix hore la dagaaltamay waxay ahayd installment-ka inaan bixiyo maadaama gaariga muddo 40 maalmood 50 maalmood aasiyaal garash aasiyaalo aan awoodi waay qarashka lagu hagaajinay mechanic uu yiri gaarigan wuxuu galay waxa galaysa lacag 260,000 aa galaysa ana waan awoodi waay gaari installment lagu leeyahay wax meel loo dhigaa ma ahayn idoo tii haysatid gaari garashka yeelay ayaad company-ga akhbaar iga maadi shali ilaa xali ilaa maanta la soo wici haya oo ugu dambeyn waxaa liisii gaarigan in biri barta asyeelo looga imaado oo la jiidanaya aniga waxaan ku dhahay gaari accident-taas gali gaari insurance ku jira ma ahayn marka accident-taas gaari garashaas yeela ma shaqaynahayo marka waxaan ku dhahay waqti hal liisiyo waqtiga liisii ayaa maaragtay gabagaba noqday marka lacag 310,000 gaariga lagu leeyahay 260,000 gaariga maaragtay in lagu hagaajiyo ayaad maaragtay garashka u yeelaa oo laayah
وأنا aan la ah marka lacagtaas waa lacag 570 kun ah waan ogsoontiin gaari cid lagu biilay oo muddo 50 maalmood garash yeela cid lagu biilay xaaladda ay ku sugan tahay waa dareemi karaa qofka naxariis leh marka walaalahay qaaliga ah ee dawladdeeda aad u qiimaha badan aan dawlad lagu soo misaynaa ajir UDM Governor Secretary Maxamed Aadan Khaliif sanadkaaga علي إبراهيم الرابع سبيكاga عمر محمد معالي حسن عمر صالح ماما كاونتي أم الخير waxaan idinku codsanayaa in aad maaragtay lacagtaas kambuniga aad ugu leeyahay gaariga iga jiidinahay inaad iga bixisaan ilaahay dartiis aad iga bixisaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi hadba qofka waxaad ilaahay u kaalmaynaa inta aad qofka kale walaalkiis u kaalmaynahaya iyadoo madaxdayda tihiin ogahay inaad maaragtay ilaahay dartiis aad iga bixisaan sidii maaragtay wax walba aad ilaahay dartiis ugu qaban jirteen madarasooyinka masaajidaha khayrka oo dhan inaad wax ku bixin jirtaan ilaahay dartiis ayaan markhaati ka ogsoonahay marka dhibkaas ayaa maanta meeshan isoo istaajiyey waxaan idinka codsanaa in maaragtay gaarigaas oo iga burburi oodna arki doontaan intii dhibka soo gaaray aad maaragtay klibkan ku arki doontaan ayaa maaragtay inaad iga bixisaan installmentiga 310 kun aadna ii hagaajisaan lacagta 260 kun oo garash u yeelo aan awoodi waa inaan ku hagaajiyo sidaas ayaa maaragtay maanta aan halkan usoo istaagay dhibanaas dhibkaas ayaa ay haysto markaan ilaahay ha idin barakay adduun iyo aakhira madaxtinimada aad tihiin ilaahay idinkuma ceebay adduun iyo aakhira dadii dunyadiisa haysteen allah idin barakeeyo nidiina si ay jecesho khayr dhammaantiin allah idin yeelo marka waxaan rabaa inaad ilaahay idin kaalmeeyo oo maaragtay igu kaalmaysaan gaarigaas installmentigaas kambuni iga jiidina iga bixisaan aadna ii hagaajisaan si aan dibdaba ilmahayda ugu shaqo bilaabo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaanan ogsoonahay in aad dad badan wax u qabateen ilaahay ajir xasanaad ha inka siiyo aniga aan aaminsanahay aan idaacaddan san camal aan ugu soo hadli doono aan ugu soo anigoo mahadnaq halkan u taagan aan ka hadli doono ood hawshaydii oofisiin ayaan aaminsanahay aad iyo aad idin salaamaa dibad marka soo kala joogtaan garabkiina allaha galo dawlad jirto qaybo badan ee cadaalad aad tihiin marka aad iyo aad u mahadsan tihiin